ولا ليال سيرة النبي عليه الصلاة والسلام iyo noloshiisii waxaa dhacay ama ku jira dhacdooyin fara badan iyo axdaad fara badan oo aynu ka dheehan karno ama kala soo bixi karno duruus iyo cibar iyo waxyaabo aynu nafteena ku maarayno oo aynu kaga dayanayno rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam haddii la yidhaahdo ha la koobo ama ha la tiriyo dhacdooyinkii nebigu calayhi salaatu wasalaam intii uu noolaa waxyaabihii dhacayay iyo mawaaqifta uu ka qaatay iyo sida uu u maamulay ama u maareeyay haddii la yidhaahdo ha la koobo ma suuragelayso siirada rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxay u taagan tahay ama ay matalaysaa jaanibkii camaliga ahaa ee noloshiisa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha qaarna waxay ahaayeen waxyaabo nadari ah ama uu ummaddiisa ku tacliiminayay oo awaamir iyo nawaahi ah sidaa ha la sameeyo sidaa yaan la samaynin taasi waa xalaal taasi waa xaaraan dhinaca kale wuxuu ahaa siiradii rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo iyadoo ahayd xayaatadiisii yowmiga ahayd ama camaliga ahayd waxyaabuhu samayn jiray mawaaqifta markaa soo wajahda sida uu u maamuli jiray ayay noqonaysaa marka ma kala ahmiyad yara labada qayboodba waxa ay ka mid yihiin sunnaha nabiga calayhi salaatu wasalaam ee ay tahay inaynu ka qaadanno oo aynu kaga dayanno oo nolosheenna aynu ku dabaqno xilligii rasuulka calayhi salaatu wasalaam qisooyinka dhacay waxaa ka mid ah qisada la magac baxday wafdu mudar ama xadiithu mujtaabiyi nimaar waxay qisadani ahayd rasuulku calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mid ah isagoo masaajidkiisii iska fadhiya oo asxaabtiisii la mudaakaroonaya ayaa waxaa soo galay magaalada madiina niman la yidhaahdo reer bani mudar oo qabiilo ah oo dabcan dadkii islaamka qaatay ka mid ahaa nimankaasi markii ay magaalada soo galeen masaajidkii maaragta ay ku soo hormareen nebigu calayhi salaatu wasalaam judhii ugu horreysayba markuu arkay nebigu wuu isbedelay waxa ay ahaayeen dad maaragta duruuf iyo dhibaato fara badan ay ka muuqato xadiidka saxaabiga warinaya waxa uu leeyahay isaga oo sifaynaya dadkaasi xaaladda ay ku sugnaayeen waxaa yimi wafdi reer mudar ah curaatun dad waxay ahaayeen aan marya sidan mujtaabiyi nimaar ama waxay siteen wax yar oo maaragta cawradoodun ay ku asturaan oo maryo jeexjeexan ah ayay siteen mutaqallidi siyuuf seefahoodina way wateen nimankani waxay ahaayeen dad islaama oo iimaanku qalbigooda u camiray oo doonayay inuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam u nusreeyaan oo u gargaaraan waxaaba laga yaabaaba iyagoo duruufta noocaasa ku sugan haddana inay jihaad iyo rasuulka iyo diinta siday ugu hiilin lahaayeen inay u soo ambabaxeen oo guryahoodii ay uga soo baxeen waxaana taa tusaya dee way hubaysnaayeen oo seefahoodii bay jeeni qaarneeyeen maaragta ay siteen dadkaasi waxay ahaayeen qabiilada la yiraahdo reer mudar markuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam arkay fatamacara wajhu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka wejigiisii baa doorsoomay oo isbedelay lima ra'aa bihim min tilka alfaaqa dhibaatada iyo busaaradda iyo
aradka ka muuqda markuu arkay ayuu wajigiisa isbedelay hadda masaajidka kamay kicin oo dadka waxba may weydiisan laakiin rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa يعني شخصي لنول ومديسة لدرين أيو أها فأمر بلالا فأذن وأقام ثم صلى ثم خطب مركب إعلام ببحي رسولك عليه الصلاة والسلام وحيد بلال وضدك يسويين وتجيي صلاة وخذ بدي رسولك عليه الصلاة والسلام لبا آيات ضد أخري oo uu ku kicinayay ama ku dareen gelinayay dadka qulubtooda ya ayuha an-nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah allihi naf kaliya idinka abuuray ka baqa macnaheedu waa maxay dadka muslimiinta ah dhamaantood waa ehel waa qaraabo waa walaalo khalaqahu min nafsin wahidah naf kaliya laga abuuro waa aabeen aadam wuxuu kala akhriyay aayada labaad fi aakhir suurati al-hashr ya ayuha an-nasu taqu rabbakum wal tanzur nafsum ya ayuha alladhina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat liqad aayadaasina waxay sheegaysaa wadada ilaahay ka baqa qof walba aakhiro waxa kaaga horeeya ama aad hormarsanayso kasi tasho ayaa lagu leeyahay markay intaas dhacday ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu labada aayadood akhriyay dadku dad ahlul iimaan bay ahaayeen dad mu'miniin bay ahaayeen dad jecel bay ahaayeen dad dareenkoodu nool yahay bay ahaayeen markiiba dadkii waa kacay waxaase ka horeysay rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu gurigiisii galay oo sidii bal in wax yaalaan ثم دخل ثم خرج يعني غوريغي بو غلاي وكسو baxay وكسو waay markuu wax soo waayay ayuu hadana xal kale oo isii baad halkaasina wuxuu noqday inuu dadkii maaragta uu booriyo oo kiciyo فتصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من ساع بره من ساع تمره dadkii baa marka qof waliba wixii uu hayay ee awoodiisu ay ahayd ayuu keenay raashin dhar caano timir wax walba waa la keenay rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu farxay sida dadku ay uga dareen celiyeen ama ay uga jawaabeen baaqisi aad iyo aad buu ugu farxay nin kamida ansaar oo asxaabtii meesha fadhiday ayaa xoolo badan keenay salad weyn oo uu soo buuxiyay oo alaab badan oo kala jaajaadi ay ku jirto ayuu keenay rasuulka calayhi salaatu wasalaam hortiisa ayuu dhigay ninkaasi salada waxa la yiri uu qaadi kari waayay isagoo walwaalaya ayuu keenay maxaa dhacay marka waxa dhacay rasuulku calayhi salaatu wasalaam in xaaladiisii isbedeshay inuu farxay fatahallala wajhu rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam wajigiisii baa nuuray halka markii hore uu iska bedelay argagaxi iyo naxdintii maaragta uu qaaday daraadeed asxaabtiisii sida ay u shaqeeyeen iyo ficilka ay qabteen iyo dareenka islaamnimada iyo iimaanka iyo walaalnimada iyo bini aadannimada leh ee ay muujiyeen markuu arkay fatahallala wajhu rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam uu farxay rasuulku marka qaacida ayuu dajiyay qaacido ayuu dadka islaamka ah u dajiyay ilaa iyo maanta ilaa qiyaami saaca shaqaynaysa oo la adeegsanay man sanna fil islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yunqasa min awzarihim shay ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها من بعده
من غير أن ينقص من أوزاره من شيء قفك مسلمين تأهر سيدا إهر قادا وحوناكسن أجر بولي هاي عد كستوك قد يتنا أجر كودا وحبو كلي هاي iyagana aan laga nusqaaminayn wixii ajar ay maragtaa shaqaysteen wakadalika waxa la mid ah qofka dadka muslimiinta ah khayr darro iyo shar iyo xumaan u horseeda ee u bilaaba isaguna wuxuu leeyahay dambigiisina uu leeyahay cid ka soo dambiga iyo xumaanta iyo khayr darrada kaga dayatana dambi buu ku leeyahay walidalika labadii ilma nabi aadam قابيل إيا هابيل وحليلي كي لدلي موية كي وحدلي إلى قيام الساعة وحي وحدلا دنبي بكلي قف كستو وحدلا استقر هذا كذا لغا ساري سبحان الله بكذا أي لغا ساري مركا والله ودوي تدك قارنا ومفاتيح ذا خيرك تدك قارنا ومفاتيح ذا شركوي قوان كان هذا إسكالي كاد نقونيسو ولا ليال دعددن اما قصدن درسيga ugu horeeyay aynu ka qaadanayna kaga dayanayna waxa weeyaan dadka muslimiinta ah inay noqdaan isku dareen inaad yaani mujtamaca muslimka ah ee isku diinta iyo isku aqeedada aatihiin inaad la dareen noqoto inaad noqon qof keligiis nool keligii noole inaad noqon keligii dherge inaad noqon keligii tashada inaad noqon ya inaad ummadaada la dareen tahay sababtoo ah hadaad adiguna iska nooshahay oo raaxo ku nooshahay dadka dariskaaga ah kuwa qaraabadaada ah kuwa isku xaafada aad tihiin kuwa isku masaajidka ku tukataan kuwa ku garanaya ay baahan yihiin waxba aanay haysan adna aad shacbaan iska tahay oo aad iska dhargeyso noloshaasi ma aha nolosha dadka gobta amaha nolol gobanimo la maaha nolol raaxo la maaha nolol maaragta qof damiir leh oo ku qanco ma aha qisadan waxaan u soo qaatay de xaaladda ummadeenu ay ku nooshahay waa ogtiin maanta dadku baqti bay ku jiraan badankoodu aqlabkoodu dad baa jira waxay cunaan aan haysan dad baa jira waxay caafimaad aan haysan oo xanuunsanaya hadaad maaragtaa dhaqaatiirta tagto dawo aan haysan waxay ku iibsadaan aan heli karaynin adduunka Hindiya iyo Ethiopia iyo Malaysia iyo Bangladesh meelaha caafimaadka loo tago dadka Soomaalida baa ugu badan baa iyaga ugu badan meel kasta saasay u tuuran yihiin cid ka badan ma jirto marka ummad aan adeeg haysan baahidoodii maaragta ay farabadatay ayaynu nahay haddii maanta la yiraahdo balde maxaa keenay iyo sababaha iyo waxa la raadiyo waa shay ka dheer oo hadda aan laga gudbi karin ama aan laga dabaalan karin qof kastaana wax buu ka og yahay laakiin maxaa ina la gudboon waxa ina la gudboon qof kasta oo muslim ah inuu mas'uuliyadda qaybtiisa qaato mas'uuliyadda inaad qaybtaada qaadato inaad ummadaada la dareen noqoto inaad waxaad qaban karta aad qabato inaad dariskaaga baarbaadho inaad xitaa hadaanad waxba maaragtaa heli karayn ala khayrin falahu ajru mithlu fa'to oo aad tiraahdo war xaaladan waxa laga qabto war arintan maxaa sidan maaragtaa loogu eeganaya dadka qof walay wax buu taraya dad jaahil baa jira oo kelmadooda iyo hadalkooda loo soo istaagayo dad ilaahay wax buu siiyo maal bay haystaan maalkooda wax ka bixin karayaan dad waa culimo oo maaragtaa diintii bay sheegayaan oo dadkii bay ku boorinayaan marka qof walowba wixii aad qaban karaysa inaad qabato ayaa loo baahan yahay walaalayaal qodobka labaad aynu ka faa'iideysan karna qisadan waxa weeye dadka ilaahay mas'uulka uga dhigay ummadda inay mas'uuliyadda qaadaan mas'uuliyadda dadka mas'uuliyadda la saaray mas'uuliyadooda inay qaataan war dadku iyagoo aan waxay cunaan aan haysan
oo bakhtiyeeya laami loo dhisaa muxuu taraya waa sax dalka aynu dhisano laamiyada aynu hagaajisano hal la nadiifiyo laakiin baahiyuhu way kala horeeyaan anu maanta waxaan isleeyahay Hargeysa waxa lambar 1 noqon kara in dadka loo sameeyo wax ay karsadaan ba aan haysan meel ay raashin ka qaataan ama raashin loogu kariyo oo ay u qada tagaan maalintii ayaa lambar 1 noqonay ilaahay subhanahu wa ta'ala qof kasto oo mas'uuliyadiisa wuu kala xisaabtamaya rasuulku alayhi salatu wasalaam marka xadiiska la leeyahay fadakhala thumma kharaj gurigii buu galay wuu ka soo baxay wuu carcaray marba meel buu u booday maxaa dhibayay mas'uuliyad baa waday wuxuu ahaa mas'uulkii iyo qaa'idkii iyo hogaamiyihii ummadda ayuu ahaa wuxuu og yahay dadkan inuu isagu mas'uul ka yahay in la weydiinayo ayuu ogaa ما قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عدم المسؤولية الملقاة على عاتقه مسؤولية دي مدحيسة سارين رسولك عليه الصلاة والسلام كما أوسن قابين مركو لي رسولكم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت انتوا وحا اي كهدليان احاديث تاسو دني waxa weeye muaamalad cid kale kala dhaxaysa muaamalad cid kale naftaada maaha naftaada laga hadli maayo waxa laga hadlay jaarkaagi waxa laga hadlay kuwii martida ku ahaa waxa laga la hadlay dadkii maaragta aad la macaamilaysay muslimka ahaa inaad wanaajiso oo wanaag ay maaragta ka arkaan waa mas'uuliyad xilwi qodobka ugu dambeeya walaalayaal aan ku soo gabagabeynaya waxay tahay ee aynu ka qaadan kareyno qisadan al-uswatu al-hasana wax wanaagsan lagaga daydo war wax wanaagsan adduunka waad ka tagaysaa oo aakhiraad qabanaysaa wax wanaagsan dunida raad wanaagsan kaga tag taariikh wanaagsan reeb caruurtaada iyo ubadkaaga magac xumaha uga tagin yaan la oranin waa ilmo hebel oo xumaan lagu sheegayo yaan la oranin laakiin ilmo hebel oo wanaaga ku suntan khayrka ku suntan samafalka ku suntan waa in aad maaragtaa caruurtaadii ay noqdaan inta adigu aad nooshahayna waa inaanay dadku ka cararin oo aan la oran waa kii khayr laawaha ahaa ya waa inaan maaragtaa la oran walaalayaal sida aynu soo tilmaanay xaalad adag baa lagu jiraa oo noloshu ay sii adkaanayso adduunka oo dhan iyadoo noloshu adkaatay ayaa haddana inaga wax inoo sii weheliyaan adayga nolosha galay waxna dunidaynu la qabnaa waxna sababteeda waxa laga yaabaa inaynu inagu aynu leenahay macaasida iyo dunuubta iyo fawaaxishku aad iyo aad bay faraha uga baxeen waxa kale oo iyaduna meesha taala dadkeeni dad bilaa tacab ah oo iska hadla oo iska fadhiya oo iska sheekeeya oo iska murma oo waxaan dantooda ku jirin ku foogan ayaa danteedii ay noqdeen badankoodii ay noqdeen waxba lama soo baxno waxba ma beerano ilaahay wuxuu ina siiyay nimcooyin fara badan ayaa ilaahay ina siiyay dalqaniya baynu haysanaa cid ina jihayso oo dadkeeni jihaysa ila dawladaha iyo hoggaanka ayaa umada jiheeya oo marba maaragta meesha dantoodu ku jirto ku jiheeya wax kalun baa maaragta dadkii ay ku mashquulsan yihiin ilaahay umadeena walaalayaal ha soo hanuuniyo ilaahay danteena adduunyo aakhira labadaba ilaahayna garansiiyo ilaahay inagana dhexdeena ha isu keen wanaajiyo ilaahay xuquuqda aynu isku leenahay ee diintu isugu keen waajibisay ilaahay hayna garansiiyo ilaahay hayna garansiiyo ألا وصلوا وسلموا على نبيكم الأمين الذي أمركم الله بالصلاة والسلام عليه حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأمهاتنا وآبائنا وأزواجنا ولكل من له حق علينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.